xafladda oo ay soo agaasimeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Damashq ee dalka Jarmalka ayaa lagu soo dhaweeyay Ugaas Maxamed, Ugaas Axmed, Ugaas Faarax oo ka mid ah ugaasida beelaha Soomaaliyeed. Xafladda oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka, odayaasha, saraakiil hore, dhalinyarada, culimada iyo haweenka ku nool waddanka Jarmalka ayaa waxa ay si weyn ugu ammaaneen ugaaska doorka nabadda iyo dib u heshiisiinta uu ka qayb qaadanayo arrimaha Soomaaliya. xildhibaan Dr. Cali Xaaji oo ka mid ah xildhibaanadii ka hadlay madashii lagu soo dhaweynayay Ugaas Maxamed ayaa waxa uu si weyn ugu ammaanay doorkii nabadeynta ahaa ee ugaasku ka geystay deegaanada Puntland gaar ahaan xilliyadii doorashooyinka. Ugaaska markii doorashada ay soo dhaweyd Puntland waxoogaa khilaafna jiray iska ogeydeen cabsi la qabay ayuu wafdi ballaaran kaga yimi degmadiisii markaasuu noogu yimi Puntland فهو أنت أرنتي نحن وحدي بين ونعكسنا دقي جزاه الله خيرا. مركز ساوي إسرائيل سافر فوق يعني مركز إنه جهين الصديق وقت شدة صديق وأنيك وقلب استاجا مركز عرفت هاي حالته وقاس كما حمد الله وقاس واحد كم مقطع حتى قماع يصير كل شعري هاي تذكر كم فريا الله صومالي اليوم كم مغلي. Sheekh Ibrahim oo ku hadlayay magaca culimada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Jarmalka ee ka qayb galay xafladda lagu soo dhaweynayo ugaaska ayaa ka soo dhaweynta ugaaska waxa uu ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Jarmalka inay ka qayb qaataan howlaha samafalka ah. war xafladan ma ka dhigno xafladii ugaaska masaajidka lagu iibiyay maash ugaas xafladii ugaas oo masaajidka lagu iibiyay oo kaafil inay noqoto ugaaskana maalinta qiyaamo oo ay u korto. munaasabadda lagu soo dhaweynayay ugaaska waxaa sidoo kale ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha, dhalinyarada, haweenka iyo saraakiil hore oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. anoo ku hadlaya magaca ciidamadii badda admiraaladii Soomaaliya waxaan leeyahay oo Damashq ku nool tafadal soo dhawow baan ku leeyahay waxaa idinka u timid shacabkii oo aan wax kala xiran ayay jirin sida uu soo wada dhex fadhiro oo meel walba lagu sugayo ayaan ku soo dhaweynaya markaas soo dhawow Ugaas Maxamed, Ugaas Axmed, Ugaas Faarax soo dhawow walaal ku hadlaya magaca hooyooyinka iyo jaaliyadaha dhan oo Jarmal iyo gabdhaheena Ugaas soo dhawow gacmo furu ku soo dhawow gabdhahaaliyo ku jecel hooyooyinka ku jecel gacmo furan ay kugu soo dhaweynayaan. madashaan joognayo maamulkeena sare madashaan joognayo maamulkeena sare dhammaan Soomaali way ka midaysan tahay dhammaan Soomaali way ka midaysan tahay Allah نمد مقالة معايا وآخر ساعة بس 5 ساعات وسوس عندنا ناس سو دو dhammaan markii la sharafta leh Soomaaliyeed meel walba isugu yimid aad iyo aad ku mahadsantihiin safarkiina iyo waqtigiina iyo maashiina noo soo bixiseen oo aad ugu timaadeen soo dhaweynta Ugaas Maxamed, Ugaas Axmed, Ugaas Faarax taas waxay ka marakacaysaa Ugaas Maxamed inuu yahay nin dhalinyaro nin ugaaskii la jecel yahayna nin ummadda Soomaaliyeed iyo beesha ugaaska u yahayna sharaf iyo cizi iyo karaamo ku leh. Ugaas Maxamed, Ugaas Axmed, Ugaas Faarax oo ugu dambeyntii soo xiray xafladda ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay midnimada ummadda Soomaaliyeed isagoo sidoo kale aad u ammaanay horumarka ay Soomaalidu ka sameynayaan waddanka Jarmalka. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa Soomaali waa walaal waa isku diin waa isku dhaqan waa isku luuqad wax aynu ku kala duwannahay haba yaraatee midna ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala baana na mideeyey oo mid naga dhigay walaalayaal qof walba oo halkaa yimid qalbigiisa ha ku qabto walaaltinimo iyo ehelnimo iyo soomaalinimo imaanshaha aan imidna إلهي سبحانه وتعالى هذه كلمه مدي من نبذينا
iyo sharafkiinna sii adkeen lahaa runtii waxaan la iloobi karin jaaliyadda reer Germany waqtiga yar oo kooban oo aad ku timaadeen dalkan iyo horumarka aad ka samayseen wax la koobi kara ma aha waan idinkaga mahad celinaynaa waxaan ogahay bulshadii Soomaaliyeed oo dalkii jirtay waxa aad u haysaan ugaas Axmed ugaas Faarax ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Damashq ee dalka Jarmalka iyadoo ugaas si weyn ugu mahadceliyay soo dhaweynta lagu sameeyay magaalada Damashq Mahad Cabdi Maxamed Marshaakir telefishinka Kalson TV Jarmalka